بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 517 عن شريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على علية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كيتا أفر طبنكي بشي لبعض صفر سنة تكون أفر بغل فرتني اللي إسلام كان وافقسان سيدي طبنكي بشي سيدي سنة كلبضا كون لبعضن إيو أفرت أنو كتري كتاب كان أوما الرأي المنتخب من صحيح السنة النبوية قيبتيسي الآداب الإسلامية أيانو كتري أنو كسو هدليني salaamta iyo wanaagga ay leedahay iyo waxyaabihii ku saabsanaa aadaabtiba marka kolba wixii aanu ka kari karo aanu ka dooranayna. maanta waxaanu qaadanaynaa shay mamnuuca oo aadaab ahaan islaamka aan la ogolayn inuu qofka muslimka fadhiga hababka loo fadhiisto qaab ka mid oo islaamku uu diidayo. waxaan ciwaan ka dhigaynaa taxriimu jalsati almaqduubi calayhim, yani kuwa loo cadhooday fadhigooda iyo qaab fadhigooda xaaraamnimadkiisa. taxriimu jalsati almaqduubi calayhim, kuwa loo cadhooday qaab fadhigooda xaaraamnimadkiisa. xadiidkan waxaa soo saaray alimaam abu daawuud iyo keyrkiiba way soo saareen, waana xadiis saxiix. xadiidkan wuxuu nabigu yii marka wuxuu yidhi suwayd, ninka la yihahda maaragtay shariid ibnu suwayd, wuxuu leeyahy mara bi waxaa isoo maray rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam waana aniguna jaalisun aan fadhiyo hakadaa sidaa aan fadhiyo. markaasuu tilmaamay qaabku u fadhiyey. waqad wadactu aan dhigay yaddii gacantayda alyusra ee bidixda khalfa dahrii, dhabarkayga aan bidixda saaray. wataka'tu aan ku tiirsaday calaa alyati baa la dhihi kara, alyat ama aliyati, maaragtay yaddii yani gacantayda maaragtay cidhibteeda ama barideeda, yani gacanta bidixda barideeda oo calaa cashaa aan cuskaday buu intaan dib u fidiyey ayuu nabigu isoo maray. faqaala halkaa gacana. faqaala markaasaa nabigu wuxuu yidhi: ataqcudu ma fadhiisanaysaa qicdata almaqduubi calay? qicda weeyaan, waa masdaru hay-a, bimacnaa qaab fadhiyeed wey. kuwa loo cadhooday qaab fadhiyeedkoodoo kale miyaad u fadhiisanaysaa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. yani kuwa cadha ilaahay ku dhacday qaabkay u fadhiistaan oo kale miyaad u fadhiisanaysaa? u fadhiisanin wey macnaheeda. xadiidka ikhwati filah waxaanu ka qaadanaynaa atashabuh maaragtay bilmaqduubi calayhim, kuwa loo cadhooday ama kuwa lacnad ay ku dhacday malcuuniinta ah, ama gaalada ama faasiqiinta, dadka xunxun ama faajiriinta, dadka xunxun oo dhan qaab dhaqankoodu inuusan qofku iska ilaaliyo usan shabihin. yani xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa saxaabiga uu soo maray asagoo gacantan bidixida, dadku in badan baana sameey, gacanta bidixida uu maaragtay uu fidsaday, waa fadhiyaa, gacanta bidixdu gadaal mariyey, calaa casha ayuu marka dhulka dhigtay, gacanta bidixdu saa ugu tiirsanhayaa markaa oo maaragtay uu cuskanhayaa. markaasaa nabigu wuxuu yidhi: ma waxaad u fadhiisanaysaa kuwii loo cadhooday hay-atu fadhigoodii qaab fadhigoodii oo kale miyaad u fadhiisan? arrintan waxaanu ka qaadanayna marka culimmadu waxay dhaheen kuwa loo cadhooday maqduubi calayhim waxaa loo jeedaa yuhuud bay dhaheen. wala yuhuud baa loo jeedaayo suurat alfaatixa غayr almaqduubi calayhim wala daaliin, maqduubi calayhim waa yuhuudda lagu fasiray, culimmadu ayay ku fasireen, daaliintana waa nasaaro wey. marka xadiidkan maqduubi calayhimta loo jeedo waa yuhuud bay culimmadu qaar dhaheen. qaarna waxay dhaheen way ka caamsantah, yuhuud qura meehe, waa gaalada oo yuhuud iyo nasaaraduba ay ku jiraan, iyo faajiriinta iyo maaragtay faasiqiinta, maaragtay mutakabiriinta ah iyo maaragtay mutajabiriinta ah iyo wixii lamidka aba wey. marka yuhuud kale laguma qaydhaye, waa wax allaali wixii xun wey. gaal iyo faajir iyo faasiq iyo mutakabir, maaragtay kuwaas oo dhan weeyaan. marka inuu qofku qaabkooda u dhaqmo, maaragtay kibirka iyo cujbiga ay ka muuqato, kuwa noocaas oo kalea wucuudkooda, fadhigooda iyo socodkooda
iyo qaabkooda oo dhan inuu qofku shabaho lama ogolo. marka yuhuud kaliya laguma qaydayo culimo kala dhan way ka caamsantay yuhuud iyo kayrkoodba oo inta xunxun oo maartay gaalada daalimiinta faasiqiinta faajiriinta mutakabiriinta waxaasoo dhan isku soo qabo intaasoo dhan dadkaasoo dhan waa dad ilaahay subxaanahu watacaala uusan raadli ka ahayn uu maarata u cadhaysan yahay. saa darteed yuhuud keliya khaas kuma marka dadka in layska ilaaliyo o laisku shabihin oo habkay u fadhiistaan iyo habkay maarata u socdaan iyo qaabkay u hadlaan iyo qaabkay dharka maarata u xidhaan iyo waxyaabahooda tashabuhoodoo dhan laiska ilaaliyo. ataqcudu ma fadhiisan baa li qicdata almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday oo cadho ilaahay ay ku dhacday qaab fadhigoodoo kale miyaad u fadhiisanaysaa bali. marka waa arrin mamnuuca weeyaan arrintaas oon la ogolayn oo xaaraam qofku inuu qaabka u fadhiisto. idan fadhiga noocaasa waa rag iyo dumarba qaabka inay u fadhiistaan lama ogolo. salaad haddaad ku jirti iyo haddaada salaad ku jirin iyo keliga haddaad tahay iyo haddaad dad la joogti intuba waa isku mid weeye. masalada kale waxay tahay dadku isweydiinayaan gacanta bidixda iyuu ninkan u fadhiye gacanta midigta haddaan sidaa iyada aan yeelo midigta intaan fidsado aan sidaa u cuskado ama labada gacmoodba gadaal haddaan mariyo oon labadooda u cuskado taa dhib ma lehe culimmadu dheh. waxa la diiday waa bidixda weeyaan gacanta bidixda keliya inaad adoo fadhiya intaad gadaal u bixisi aasaa u cuskati waa midda la diidan yahay. laakiin midigta haddaad gadaal u bixisi u cuskati ama labada gacmoodba aad gadaal u bixisi dhib male maxaa yeelay juluuska asalkiisu waa waxyaabaha mubaaxa qofku qaabku doono inuu u fadhiisto ilaa daliil inuu yimaado u diidahaya mooyaane. marka inay midigta saa loo cuskado ama labada gacmoodba la cuskado gadaal intii loo bixiyo taas wax daliilo ku soo arooray male. daliilku wuxuu diidahayaa masaladan ku saabsan maaragtay gacanta bidixda ah ayaa la diiday qofku gadaal intuu mariyo calaacasha dhulka uu dhigo uu sidaa u cuskado waa midaan la ogolayn ee nabigu uu yidhi ma kuwa ilaahay u cadhooday fadhigoodoo kale iyo qaab fadhigooda miyaad u fadhiisanaysaa waa midaan la ogolayn. waanu qaadan doonaa si guud ahaaneedna dadka xunxun ama malcuuniinta oo ilaahay lacnaday ama maqduuba calayhim kuwa ilaahay u cadhoodaya ama faasiqiinta ah ama faajiriinta ah ama dhaalimiinta ah ama gaalada ah waxaasoo dhan isku soo qabo inuu qofku shabaho lama ogolo inuu iska ilaaliyaa la rabaa. waan qaadan doonaa hadduu ilaah yidhahdo cashirkeenna midkan kusoo xigaanu ka dhigi doonaa inay maaragtay hataa salaamta markaa wax salaama inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuhuudda iyo nasaarada ha isku shabihina qaabka isu salaamaan iyo salaantooda ha shabihina le. marka gaalada iyo faajiriinta faasiqiinta iyo intii xunxun oo dhan hadduu doono muslim ha ahaado nin qof faasiq ah oo faajir oo hadduu doono muslim ha ahaado habdhaqankiisa inaad dhaqantay laguma ogolo. ehlu bidac qaabkooda inaad u dhaqanto shabahdi laguma ogolo. idan waxyaabaha xunxunka oo dhan qofka looma ogolo. xadiidkan markaa ninkaa waxaa loo diiday kuwa ilaahay u cadhooday oo cadho rabbi ay ku dhacday qaab fadhigooda miyaad u fadhiisanaysaa ha u fadhiisanin weeyaan iska ilaali. marka tashabuh marka min hunaa waxaanu ka qaadanaynaa marka in badanoo muslimiinta maanta gaaladii iyo dad xunxun iyo faasiqiin iyo faajiriin iyo waxyaabahaasoo dhan ayay maaragtay tashabuh aada u badan yihin. haddii salaan noqoto qaabka laisu salaami hadday hadal noqoto dhar la xidhanayo hadday noqoto qaab socod hadday noqoto tima hata koleta sida loo xiiranhayo iyo wixii ku saabsan waa arrin aan maaragtay aan sax ahayn. marka qofka muslimkaa inuu diintiisa calaa bayina kaga noolo diintiisa uu ku noolaado oo uusan ka tallaabsanin oo dad aan waxba haysanin oo ehlu baatil ah inuu isku shabaho waxa weeyaan waa arrin khatar wey waa arrin aad iyo aad u khatar oo diintiisa dhaawacaysa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqa nadsanugun irtaaqa xaqa raacitaankiisa. hal mar baan xadiidka lafdigiisa akhrinayaa. alxadiidu 517 can shariid ibni suwayd radi allahu canhu qaal mara bi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa ana jaalisun hakada waqad wadactu yadii alyusra khalfa dahri watakatu calaa alyati yadii faqaala ataqcudu qicdata almaqduubi calayhim rawaahu abu daawuud walxadiidu saxiix. hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.